gudaha, wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka dekedaha, taliyaha xoogga dalka Soomaaliya, xubnaha taliyayaasha xoogga dalka ee kala fadhiya, safiirada saaxiibada aan nahay nagala soo qayb galay xafladan, marti sharafta kale, shaqaalaha, asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. salaan kadib wax badan iguma jiro, war badan iguma jiro aan ahayn inaan uga mahad celiyo madaxda qaranka oo ii egmaday bil ka hor inaan halkan wasiir ka noqdo, haddana ii egmaday xafiis kale, aadan uga mahad celinayaa. laba dardaaran oo yar bisaan halkan rabaa inaan ka jeediyo. dardaaranka koobaad waxaan rabaa inaan wasiirka gaashaandhigga cusub saaxiibka fiqi aan u jeediyo. dardaaranka labaadna waxaan rabaa xoogga dalka Soomaaliya ciidamada qalabka sida guud ahaan inaan halkan uga jeediyo. midda koobaad saddexdii sane aan golaha wasiirada fadhinay, maalin kasta macnaha isbuuc kasta mara waxaana la siinayaa warbixin ku saabsan dhacdooyinka dalka iyo dabcan iyo gaar ahaan wixii xoogga dalka ku saabsan. markaan dhegaysto marka anigu isla hadlayo waa dhaliili jira xoogga dalka Soomaaliyeed, maxay saan u dhacday, maxay halkaas samayn waaye. laakiin intii yaraadoo aan meeshaan joogay waxaan ogaaday inay ku shaqaynayaan duruufo adag, inay meeshaas ay ka jirto inay ku shaqeeyaan ciidamada xoogga dalka ee aysan mudnayn in la dhaliilo, inay mudan yihiin ammaan iyo isgarabtaag inay mudan yihiin. waxaan runtii uga mahad celinayaa duruufaha adag ay ku shaqaynayaan inuu ilaahay ajar ka siiyo. waxaan rabaa marka dardaarankaas inaan halkan uga jeediyo wasiirka cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ah. wasiir, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay ku shaqaynayaan duruuf adag. waxaan qirayaa inaad kartideedii leedahay, aqoonteediina aad leedahay. duruufahaas adag ee ciidanku ku shaqaynayo waxaan rabnaa inaad wax ka qabatid, siday ugu kala mudan yihiinba inaad wax looga qabto. dardaaranka labaad waxaan rabaa inaan halkan uga jeediyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee furmaha ku jira, meel kastay joogaan waa salaamaya, waan ammaanaya, waana u ducaynayaa. waxaan kula dardaarmayaa inay ilaahay ka baqaan, ilaahay ku xirmaan. guusha waxay ku xiran tahay inay ilaahay ku xirmaan oo ilaahay u dhawaadaan ay guusha ku xiran tahay. duruufaha ay ku shaqaynayaan, aad ku shaqaynaysaan ciidamada xoogga dalka haddaad tihiin duruufo adag waaye, waa idinku soo duceynaynaa. waxaan rabaa inaan la dardaarmo idhaahdo inay xisaabsadaan marka ay dagaalada ku jiraan, inay ajir xisaabsadaan ee aysan u arkin inay iska dagaalamayaan ee keliya ah, inay ajir xisaabsadaan. sababtoo ah waxay ku jiraan jihaad, ay ku jiraan cadowga naga soo horjeedana fa innahum ya'lamuuna kamaa ta'lamuun wa tarjuuna min allahi maa laa yarjuun. inta aad xanuunsanaysaan ka badan ay xanuunsanayaan, ilaahayna adinkaa ka xigoo markaas wax la yaqaana ku dagaalamaya. waxaan ilaahay idinkaga rajaynayaa inuu ilaahay idin guuleeyo. goob kastoo aad kula kulantaan inuu ilaahay idin guuleeyo. meel kasta iyo xafiis kasta oon joognana waxaan insha allahu cabdal ku gaarsiin doonaa inaan duruufihiina wax ka qabanna haddii ilaahay yidhaahdo. aad iyo aad aad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.